السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena ma ogto ku soo qaadana sheekooyin xiiso badan kuwa ka warqabteen iyo kuwa naga qarsan saaxiibada markooda aan ku bilaabanaa Rebel Star Bravasa wali waana heesta filimkiisa kalkii wacdaraha uu dhigay marka meel iska dhigno waxaan soo qaadanayna ma ogtiin Bravasa waxa jiraan filimo caan oo iska diiday kuwaas oo blockbuster ahay Mahesh Babu iyo Ram Charan iyo NTR ay ka mahadiyeen markuu iska diiday laakiin hadda ninkan waa ban indie superstar bar filimada uu diiday aan soo qaadano saaxiibayaal maxaa kamid ah waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Okadu Sultan ku caan baxay 2003 blockbuster weyn ahay sidoo kale tan saaxiibayaal ninka lagu magacaabo Gunashkar uu agaasimay Bravasa filimkan loo bandhigay laakiin markii hore uu iska diiday sheekada uma uusan arkin filim weyn Sultanka qaatay kadibna waxaan ka warqabnaa inuu noqdo blockbuster waali xitaa Tamil iyo Bollywood remake ka sameeyeen waana filimkii dabcan barakashad uu ku jiray sidoo kale tan dabcan doorkiisa uu matal markuu Arjun Kapoor u qaatay simhadri hadana iska diiday waxa ka mahadiyay markaan NTR Rajamolia filimkan iska lahaa blockbuster movie kale iska diiday Bravasa waagan waa wareysana umali ahlu shaki u ahay marbaadii Okadu iska diiday iyo sidaada muuqato iyo simhadri inta sheekada kuma ekay Arya oo Allu Arjun lagu bartay national award winner xitaa uu ku qaatay bandhiga uu sameeyay Sukumar iyo sheekada sidoo u qoray ayaa loo bandhigay Bravasa asna filimkan waa iska diiday wuxuu isla sheekada kuma qalanto personality-ga Bravasa ahaan kuma soo baxay Arya Allu Arjun waa career-kiisa kii ugu fiicnaa markuu filimkan sameeyo cirka sare gale Sukumaran uu sameeyay xitaa Arya tuwa la sameeyay haddana markaan wuxuu u faa'iideeyay Ram Charan wuxuu iska diiday filimkii Nayag waa filimada Ram Charan aan ku barana markii af Soomaali uu nagu soo galay filimada lagu celinay fan baro turjumaysa Nayag wuxuu kamid yahay filimada waalida uu nagu qabsaday Kajal Agarwal Amala Bolo la sameeyay ninkii VV Vinayak uu sameeyay what a mass movie arkan muxuu film ahay Ram Charan career kasta cirka sare u galiyay markuu filimkan la imaaday Bravasa waa iska diiday waxa waaye jugjug iyo qoobaca wuxuu dhahay Rebel hay ugu filnaada kan ma sameyn kari war afartan film oo odaga diiday ka waramahay laba film oo NTR u faa'iiday Mahesh Babu u faa'iiday Allu Arjun u faa'iiday Ram Charan u faa'iiday inta u socotay ku kalena waajir lagu magacaabo Brindavanam filimkan sheeko waxa waa asigan NTR sameeyay Bravasa iska diiday Brindavanam aniga xasuusti ku aaniyo Brindavanam idinka ay khatarsan NTR filimkan inkastoo filimkan waxa la saaxiibayaal markii hore factory theater dadka soo jeedan laakiin gadaal wuxuu ka noqday cult classic aad loo jeclaaday Brindavanam iga soo hubiyay marka ani ma xasuusti ku ahay kig xitaa waa diiday Ravita Jasrand ready filimkan uu sameeyay blockbuster ko markii dambe Salman Khan qaatay xitaa oo Salman Khan markuu sameeyay u kala kacday Ravita Ja waxa la filimkan Bravasa loogu talagalay Jasrand ready la wadaagay waa iska diiday Bravasa oo saarabtahay markii Ravita Ja cid kasta markii waa u faa'iiday sidaada muuqato maqaalkan shabakada Komaya ku arkay saasan u soo xigtay marka barnaamijka ma ogtiin oo toddobaadla bariyahan aan ka mashquulana waxaan iska dhahay qac isaga siisto maanta marka Bravasa miiska saarnay bal commentiga ka dibta odaga filimadaas uu iska diiday inaca kale ma ogtiin saaxiibayaal maanta waa maalintii Sultan uu soo baxay Salman Khan filimkiisa 6 July sanadii 2016 wada blockbuster movie 170 daqiiqo soconaya Salman Khan iyo Anushka Sharma filimkan waa jileen waa arafa iska lahayn sidoo kale tan Ali Abbas Safar director uu ka ahay 300 karar iyo filimkan soo xariir cimri ahaantii si bambar oo binno ku furmay maalinkiisa ku xitaa wuxuu keenay 36 karar bar 4350 tiyaatarna waa la saaray World War Gross wuxuu gaaray 577 karar suuqada caalamka xitaa wuxuu ka soo xariiray Sultan 24 milyan oo dollarka Mareykanka Sultan oo kale malahilaahi 32 milyan oo qofoodii ka badan tigida u goosteen what a movie kan film waa dhaaf saaxiibayaal Sultan saan ka warqabnay sidoo sallu ugu xarakeeyay waxyaabaha dheeraad ka soo qaadan karna waxa qayb ka Sunday Dude ayaa filimkan loo bandhigay doorka tababarka uu siinay Randeep Hoda inuu matalo Dude waa u suuragali waasay Randeep Hoda matalo waan lagu amaanay Sultan sidoo kale magaca filimkan waxa loo diiwaan geliyay markii hore Dangal laakiin saaxiibayaal waxa leeyahay Dangal amar qaana asna filimkaas diiwaan gashtay waxa soo horbaxay filimkii Dangala soo horbaxay saadarteed marka way araf magacaas iska dhaafeen waxay qaateen Sultan ay qaateen kan ganar runada filimkan caadi u diiday Aditya Jabra intuu la kulmo wuxuu dhahay filimkan ku haya xilligaas way ka casinaad gabadhan Tanu Willis Manuritan SMS 150 karar gaar cirka mareysay war wuxuu dhaado hawada sare mareysay magastaa Salman Khan Sultan wada sameeyay waa laga yaabi doon lagdan iyo musaaraca jilisa war waxay dhahday raali ah dhahday aniga Salman Khan waxas ma aqaan dhahday waxaan u baahanahay dhahday filim aan aniga kaliya hogaamiyay ka xitaa ma aysan qarsanay warbaahinta waxay ka dhahday waa iska diiday filimkan Aditya Jabra waa araf aad kaga xanaaqay ficilkan Ganar Ronet ee sameysay kadibna cilaaqaadkeeba u jareenbo kadib dabiika Abu Dukani iyo Briniti Jabra loo bandhigay way suuragali waasay kuwan si caadi ugu suuragali waasay laakiin Anushka Sharma qaadatay filimkan oo wad ee role ee sameysay ee performance aan caadi ahayn Sultan wuxuu ahaa saaxiib Salman Khan filimkiisii dabcan markaas xilligaas oo filimkiisii labaad u ahay 300 karar u gaaray Bajrangi Bayjana kaga horeeyay Sultan ku xigsaday kadib badane
taageer Zinda wala imaa 2017 marka xasuusa idin geliya bal Suldaan film waa dhaafay saaxiibayaalow commentiga ka soo dhiibta xariifka xataa Salmaan Qaan la socdo saaxiibkiisa door fiican u qaatay film waa heesaha ku jireen Baby Ka Boss Basandi iyo Jaga Jamane maal dhaha ninkii Pakistaaniga qaaday hees kasto oo ku jir Suldaan waxay ahayd hees Charti Buster ma bal helaya Suldaan oo kale waa filimada naadirka waxa waaye oo wax kasta isugu toosay scriptiga jilinka sheekada hadii scripti aan dhilahay muusigada wax walba isugu daba dhacsan xilliga la daawaday Blockbuster-ka uu noqday waa repeat value aan caadi aanu leeyahay filmka Salmaan Qaan waa ku xarakay Ali Cabdi Safaarna soo madaxiis dhagdhag iyo sameeyay hadana badmayaan joodbiyaan naga daba carara oo baaba oo la fiirsan karno la imaadeen dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa saaxiibayaal barnaamijkeena ma ogtihiin 16 sano ka soo wareegtay filmkii Janoto iyo Janina oo dabcan aad iyo aad looga helay fariinta jaceylka Amir Qaan maalgeli wiilku abtigu ay ku soo caan bixiyay Imran Qaan iyo soo kale Ganela Dasuusa hadaba aan soo qaadana 6 waxyaabood oo filmkan still aad iyo aad loogu jecel yahay Amir Qaan u hagar baxo lacagta uu galiyay iconic storytelling sida sheekada loo sheegay shactirada kaftanka xiriirka uu la saaxiibtinimada jaceylka memorable muusigada uu la inna aadam ay rahmaan muusigada uu garaacay iyo heesihii classic uu la yaab iloobi karo Babu Kan dance salaw kala uu qatarsan heestaas waxa waaye 2007 waxay noo heestaan caadi ah Babu Kant dance sala dance iyo soo kale kabi aditiyo heesa waa laha filmkan Ganela Dasuusa qurux leey Imran Qaan oo ka daran wada movie ina kale chemistry Ganela Dasuusa Imran Qaan wuxuu performance filmkan loo daawado highlight ku labadan si isugu soo baxaan kiyadu ahayn inaba caadi meen love ka dhaxay isfahanka hersar waa chemistry filmkan labadan ku soo bandhigeen heartwarming friendship saaxiibtinimo wuxuu lahaa kal ilaab qalbiga taabanayso oo inaba caadi qaabka unique loo dhigay hersar ah sidoo kale tan Janoto iyo Janina wuxuu jibiyay qaabkii storytelling-ka dhaqanka Hindi loo sheegay jir sheeko caadi normally waxaas laga bixin Amir Qaan wuxuu la imaaday wiilkii abtigu u yeeshay sheeko wuxuu sameeyay cajiib badan oo dadka reer magaalka rom-com-ka markaas la bilaab in la sameeyo qaab wuxuu u dhigay marka dhalinyarada xilligaas joogan waaqiciga Hindiga ee ka heli kareen ugu dambeyntiina timeless appeal waa hadda dhahday waa daawana Janoto iyo Janina oo kugu soconaa sida sheekada loo dhigay oo refreshen uu ahay marka lixdaas qodob aan ka soo qaadanaynay ma ogtihiin filmkan xoogaa waxbaan ka siinay maqaayada commentiga ka dhibto qofkan daawan Janoto iyo Janina fadlan raadso hubanti aan kulligood jilayash ka soo muuqdeen si heer sare ee lagu qaybiyay laakiin Amir Qaan wiilku abtigu iyo ku soo caanbixi Imran Qaan iyo Ganela Dasuusa oo kaalinteeda qaadatay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa saaxiibayaal ciwaanada qaybka ee ma ogtihiin filmka Ladla Anil Kapoor ku xarakay super hit ka ahay Charti Buster movie heesalahay in filmkan saaxiibayaal 2 karoor ka yar budgetkiisa lagu sameeyay 13 karoor 14 karoor ganacsigiisa guud wall war garoos gaare super hit ka filmkan ahay Ladla 94 Anil Kapoor uu sameeyay Raj Kanwar director-ka Anis Basmi sheekada uu qoray wad ee movie kamal iloobi karaa heesii ku jireen ma oo mari maayo kaleeto filmkan ogaada reer Karnataka laga soo qaatay marka hore Anuraga Arilithu al dhahay 1986 soo baxay asigoo saaxiibada qiimaha badan mashruucan هاي reerta lagu iska lahayn dan kadib asigoo Tamil la sameeyay waxa loo baxshay Manan Rajni Kantiya sameeyay haddana asoo jeestola dabcan soo baxay waxa sameeyay asoo Rajni Kantiya sameeyay Manam oo Tamil ah 92 haddana jirin Jeevia la imaaday Garana Magudul la 92 sameeyay kadib le uu qaatay Anil Kapoor 94 marka waligeeda koonfur iska dhici jiray wax laga soo qaadan jiray filinkan Siri Devi Ravena Tondon kaalinta qaatay inaba caadi ma ahan Farida Jalal doorkii qaadatay Anubam Khair Barash wal Brem Jabra Monish Bal Shakti Kapoor waa laga buuxay wad movie heeso لا يسوق دبا دحسنا لا لما لو بكرابه ما انت حسوس اين غلي marka ma ogtiin intaas aan ku tuuranayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambaado alla idmo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh